بسم الله الرحمن الرحيم كلنتها بوندا وديال كسو دوادا وركا تلفزيونka NTN واد هادهana kala socotaan NTN TV qodobada warka ugu doorka roon ee caawa aad ku daawan doontaan waxa kamid noqon doona taliyii hore ee hay'adda mas'uuliyadda sirdoonka qaranka Soomaaliya Faad Yaasiin Xaaji Daahir oo markii ugu horeysay ka hadlay dilkii sargaal Igraan Taliil dushana uga tuuray saddex mas'uul oo dawladda Soomaaliya ka tirsan madaxweynaha Eritrea waxa uu shuruud adag ku xiray dib u soo celinta askartii Soomaaliyeed ee tababarka lagu qaaday dalkaas Eritrea maxay kala yihiin afarta qof ee loo saadaalinayo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya in loo magacaabo xogo muhiim ah ayaan kaga haynaa gudoomiyaha gobolka Hiiraan waxa uu codsi u diray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud faafayna ka soo baxaya qarax qasaare geystay oo xalay ka dhacay duleedka magaalada Muqdisho xirsi cali oo aydan culus u jeediyay xukuumadda Muuse Biixi waxa uu ka hadlay weerar lagu qaaday gurigiisa qodobada wararka dibadda NTN TV ay haysana waxa kamid ah dad ku dhintay shil tareen oo ka dhacay wadanka Iran waa 11ka bisha 6 sanada 2022 ku soo dhawaada warkii NTN TV oo faahfaahsan taliyii hore ee hay'adda mas'uuliyadda sirdoonka qaranka Soomaaliya Faad Yaasiin Xaaji Daahir oo waraysi siiyay qaar kamid ah warbaahinta Soomaaliya ayaa dilka Igraan Taliil dusha u saaray saddex mas'uul oo ka tirsan dawladda Soomaaliya kuwa oo ay kamid yihiin ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Injineer Maxamed Xuseen Rooble iyo taliyaha cusub ee hay'adda NISA Mahad Salaad yaagaasima ku xigay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Sheekh Al-Cadaala Faad Yaasiin oo hadalkiisa laga dhadhansan karay dhulyeerin siyaasadeed iyo markaasi madax la dhac ayaa waxa uu sheegay in dilka Igraan Taliil ay ka dambeeyeen saddexdaasi mas'uuli waxa uu sheegay in qorshaha abaabilka ay lahaayeen taliyaha NISA iyo wasiir ku-xigeenka wuxuuna Faad Yaasiin oo u muuqda mid war aan imika laga sugaynin la soo shirtagay uu sheegay in uu maskaxdii ka dambeysay dilkaasi uu ahaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya haatee dadka Soomaaliyeed waxa ay bilihii ama sanadihii u dambeeyay arrinkani hadal hayay ay dusha eeda kaga tuurayeen Faad Yaasiin oo intii uu xilka hayay arrintani aan ka hadlin imikana arrinkani soo sheegay asagoo oo ku sugan dalka dibadiisa xogaha soo baxaya ayaa sheegaya in dawladda Eritrea ay diidan tahay dib u soo celinta dhalinyaradii Soomaaliyeed ee dalkaasi tababarka lagu qaaday warkaani oo aysan weli ka hadlin filla Soomaaliya ayaa waxa markii ugu horeysay toddobaadkii hore dibadda u soo saaray nin waayadani dambe arrimaha siyaasadda Soomaaliya saameyn weyn ku lahaa Georgia Anderson ayaa sheegay in madaxweynaha dalkaasi Eritrea Asiyaas Afwerqi uu shuruud adag ku xiray dib u soo celinta dhalinyarada dalkiisa tababarka lagu qaaday ama tababarka lagu siiyay wuxuuna sheegay in soo celinta bedelkeeda uu dalbanayo in la siiyo lacag dhan $50 milyan oo dollar lacagtaasi ayaa lagu sheegay mid dawladda Eritrea ay ku soo dallacatay intii tababarka ay ku jireen dhalinyarada Soomaaliyeed la siinayay raashin iyo waxyaabo kale oo ay u baahnaayeen dawladda Qatar ayaa horay loo sheegay in ay bixisay 2 milyan iyo bar waxaana sidoo kale la sheegin in lacagahii dambe oo ay ballan qaaday ay bixisay in kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Farmaajo ayaa la rumaysan yahay in uu eeda dhalintani uga xubsiibtay ama uga gudbay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya lama oga ilaa iyo hadda waxa xukuumadda Soomaaliya ay ka yeeli doonto hadalka ka soo yeeray dawladda Eritrea waxaa muddo 30 maalmood ku dhow ay ka soo wareegtay doorashadii taariikhiga ahayd ee ka dhacday dalka ee lagu doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo horay dalka madaxweyne uga soo noqday waxaana maalintii Khamiista ahayd ee la soo dhaafay lagu caleema saaray magaalada Muqdisho ee xarunta Soomaaliya
madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ayaa shaqada ugu adag ee indhaha lagu hayo waxa ay tahay sidii uu u soo magacaabi lahaa wasiirka koowaad ee xukuumadda Soomaaliya ama ra'iisul wasaaraha taasi oo la sheegayo in ay hardan adag ugu jiraan siyaasiyiin caana iyo kuwa saaxada siyaasadda ku cusub sida xoguhu sheegayaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ka codsaday dhammaan saaxiibadiisa la soo shaqeeyay iyo taageerayaashiisii ama ololayaashiisii doorashada in arrinka soo magacaabista ra'iisul wasaaraha ay u daayaan asaga kagana raali noqdaan shaqsiga uu soo magacaabo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dhinacyo badan ka xeelinaya sidii uu u raali gelin lahaa dhammaan saaxiibadiisii jidka dheer la soo maray halgankii dheeraa ee uu kadib ku guuleystay madaxtinimada dalka ayaa imika wararku waxa ay sheegayaan in la filayo inuu soo xusho wajiyo cusub oo siyaasadda Soomaaliya ku cusub ragga loo saadaalinayo inay noqdaan ra'iisul wasaaraha dalka waxaa ka mid ah Maxamed Keenan Xirsi oo ay saaxiibo aad isugu dhow ahaayeen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud xilligiisii ololaha iyo Guuleed Saalax Barre oo ay wataan saaxiibadiisa ololaha sida la sheegay isla markaasna aad ugu dhow madaxweynaha Soomaaliya halka la sheegayo rajada madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo la filayay inuu noqdo ama loo saadaalinay inuu noqdo ra'iisul wasaaraha ay noqotay mid hoos u sii dhacday kadib markii saaxiibo badan ay ku qanciyeen in uu isaga tanaasulo raadinta xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan ayaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ka dalbaday in laga taageero howlgallada ciidamada Soomaaliya gaar ahaan qaybta 17-aad ay ka wadaan wadada isku xiriirisa magaalooyinka Beledweyne iyo Matabaan Jeyte ayaa wasaaradda gaashaandhigga iyo madaxa sare ee dawladda Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ka codsaday in la laba jibaaro taageerada la siinayo ciidamada ku mashquulsan howlgalladaasi kuwaasi oo la doonayo in looga saaro dhammaan deegaanadaasi iyo aagaga ay kaga sugan yihiin al-shabaab deegaanadaasi gobolka Hiiraan waa meelaha ugu badan ee ay ku sugan yihiin al-shabaab ama wadooyinka halbowlaha ay inta badan weerarada gaadmada ay ka geystaan waxaana muddooyinkii u dambeeyay ka soconayay howlgalla ciidamada xoogga dalku ay ku sifaynayaan kooxahaas warar dheeraad ayaa ka soo baxaya laba qarax oo xalay ka dhacay xeerada badbaado iyo deegaanka kiiloomitir 13 ee duleedka magaalada Muqdisho labadan qarax ayaa la sheegay in ay geysteen khasaare isugu jiray dhimasho iyo dhaawac waxaana sida la sheegay nuucooda uu ahaa qaraxyada nooca miinada dhulka lagu aaso qaraxa ka dhacay deegaanka badbaado ayaa lala eegtay askar ka tirsan ciidanka dawladda Soomaaliya oo halkaasi marayay halka qaraxa kale ee ka dhacay xerada badbaado la sheegay inuu ka dhacay maqaayad shaaha laga cabo labada qarax ayaa la xaqiijiyay inay geysteen khasaare dhimasho iyo dhaawac mana jirto ilaa iyo hadda cid sheegatay mas'uuliyadda weerarkaas magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa inta badan ka dhaca qaraxyo noocan oo kala ah iyo weeraro isugu jira gaadmo iyo weeraro toos ah waxayna inta badan ciidamada ammaanku ay sameeyaan howlgallo markaasi kadib ay ku baadigoobayaan kooxihii ka dambeeyay deegaanka xal qarax oo ka dhacay iyo deegaanada u dhow waxaa ka socda howlgalla ciidamada ammaanku ay ka sameeyaan hogaamiyaha xisbiga wadani Xirsi Cali Xasan oo ka hadlay gaari saakay la sheegay inuu gudaha u galay gurigiisa oo ku yaala xaafadda Goljanno ee magaalada Hargeysa ayaa sheegay in gurigiisa si qorshaysan loogu soo weeraray gaari isla markaasna gudaha loo soo galiyay waxa uu intaasi ku daray in uu arrinkaasi ahaa mid asaga loogu talagalay isla markaana lagu cabsi gelinayay Xirsi Cali wuxuu sidoo kale sheegay in kolkii dhawaan banaanbaxyadu ay ka dhacayeen magaalada Hargeysa sidaasi oo kale gaadiid lagu weeraray isaga iyo xubno kale oo kamid ah axsaabta mucaaradka ah waxa uu sheegay arrinkaasi ujeedka laga leeyahay inuu yahay sidii loo cabsi gelin lahaa xubnaha mucaaradka ah iyadoo u dambeeyay axsaabta mucaaradka ah iyo dawladda ama xukuumadda Soomaaliland waxaa ka dhex taagnaa khilaaf aad u xoogan iyo xiisad siyaasadeed oo kacsan sida ay ku warantay wakaaladda wararka Iiraan ugu yaraan 21 qof ayaa ku dhintay 10 kalena ay dhaawacmeen kadib markii uu
bariga dalkaasi Iiraan tareen uu shil ku galay. tareenkan oo ay saarnaayeen 348 rakaab ah ayaa ka soo baxay qadka u dhaxeeya magaalooyinka Marshad iyo Yazd oo qiyaastii 50 kiiloomitir u jira magaalada Tabaas. ku-xigeenka madaxa tareenada Iiraan ayaa sheegay in shilku uu yimid kadib markii uu tareenku ka dhacay goob qodis ay ka socotay oo u dhow wadada tareenku, taasina ay sababtay in halkaasi shil ba'ani uu ka dhaco oo ay dad badani ku la'daan halkaasi. ku mahadsantiin daawashada warkeena. warkii aad kala socoteen NTV-na waa naga intaas daawadayaal. NTN TV